صوم كبشر رمضان waxay ilaahay waajibiyay sanadii labaad ee hijrada taariikhul wujuub marka la eego waqtigaas oo ahayd waqtigii dawladda islaamka ay caga dhigatay ciidankeedii heshay badar dagaalkii la oran jirayna hirgalay waqtigaas ilaahay ahkaam badan ayuu waajibiyay oo marka soomka iyo sakada iyo sakaad fidriga iyo ciidaha kuwaas oo dhamay kamid ahaayeen oo qaarna waajibiin qaarna sunni soomku qaybu noqda midna waa faral midna waa sunni soomka faralka waxa kamid ah kanaynu hayno ka bisha ramadaan la soomaa oo arkaanu islaamkii kamid ah waxa kamid ah soomka kafaara gudka ah سورة القسمع هي سورة النساء أي كورمية كفارة وين وليدا وحكم إذا صوم صوم النذر لا هذا قفك هتو يسكو واجبيو وكو واجبية أنت وحي كصهرينا وصوم سنة وانو قيب بدنيا كيما كالكرين كوهينا واكي أركان الإسلام كمدها فرض كاها تعريف كصوم كنا والمساك marka tilmaantiisa la eego waa iyadoo qofku wax iska joojiyo maryamo bint imraan waxay leedahay inni nadartu lirrahmaani sawman ilaaha rahmaanka waxa nadar ugu galay inaan soom sameeyo falan ukallima al-yawma insiyan oo aan insi la hadlin marka hadal la'aantii ayaa soom noqotay soomka xukunkiisa marka la eego bisha ramadaan sida horeba inuu soo sheegnay waa waajib آياتنا إلهي وكعدي كتب عليكم الصيام وحكى النبي محمد كعدي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحها وكوري بني الإسلام على 5 إسلام كشنتير بكل سنة صوم كوكو ضري بشهر رمضان صوم كيد يا رمضان با وحيلاده هاي فضل البضن ونصوصته وقصة أروري وقار كودا ينهالك كو أركينا فضائل كاية ديرات كلاده يا وحيابا خصائص بشهر رمضان قونية وحكم إذا فضائل كان إلهي وشاق وبال إلهي وكاني قرآن كريم وهبئي هديد وين وإلهي ومدن وسياه ونبلو كتر هبين دوري استيات بلاد دوري استيات السنة يبلاد دير وليبا كفضل البضان وكاي لهي مركا فضل كيسه مركو شيغي شهر رمضان الذي انزل فيه القران فضائل كيسه كميت وحا فضائل كيسه كميده انه النبي شيغا عليه الصلاه والسلام عسومدها الهي بشن اني دياريين والبابدي جنادنا اي فريهين كوي نار تلا خريا شياطين لنا رجينيو قفك بشا دنتا انه الهي جنده geeyada muslima فضائل كيسه waxa kamida inuu nabigu sheegay عليه الصلاه والسلام bishan qofka sooma دنبغي هرودن إن لغا دافاي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحاصف فضائله وليين كبدنبا دراديد سلفنا الصالح مددكي وناغسنا عبادته وددالي جري aad bay ugu bushaaraysan jireen marka ay bishu soo dhowdahay oo fursadaha umriga laga faa'iideysto ayay warkayeen